السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجاعيجو ومنير كسكي. فضلا هدي عديجو عصب تاعي سبسكرايب إيسار لاقنا إيده جمال الكنفرو سيدا أولا سعطو برامج كحيجة ما أنت waxaan ka hadlaynaa qaybta labaad ee dadka cusub ee soo galaya dalka ama wadanka Switzerland. qaybta labaad dhanka bulshada iyo nolosha maalinlaha. Guriyeynta waa muhiim in qofka cusub la caawiyo sidii uu u heli lahaa hoy ku haboon. Waxaa jira hay-ado iyo xarumo caawiya muhaajiriinta soo galaya dalka Switzerland. Barashada luqadaha rasmiga ah ee Switzerland waxaa ka mid ah Faransiis, Jarmal, Talyaani iyo Romaans. waxaa lagula talinayaa in qofka cusub uu barto luqadda looga hadlo gobolka uu ka degan yahay wadanka ama dalka Switzerland. waxaa jira koorsooyin bilaash ah ama qiimo jaban. Isdhexgalka bulshada waxaa wanaagsan in qofka cusub lagu xiro jaaliyadaha Soomaalida, kula kulmo bulshada ah iyo xarumaha diinta sida waxbarashada, goobaha la iskugu yimaado iyo meelaha kale. Shaqo raadin haddii qofku uu doonayo shaqo waxaa lagama maarmaan ah in uu la xiriiro xafiisyada shaqo raadinta ama website-yada shaqooyinka laga raadsado. fadlan la soco qaybta saddexaad. mahadsanid waad ku mahadsan tahay daawashadaada iyo dhegeysigaaga.